عاشقين كبدا عكتو القارة يكوهيان عاوة بوسكي كعياري لايان بوسكي وباين اسكات كيان برتاي كجلعسين يا برتاي تاي كبدا بوسيشن كاي كقاتان كستا وابري waxay soo turan doonaan bulis masaafaan ka dheer shabaq wiilaan leeyo golaaya degmada lagu magacaabo dharkin leey Hussein ayaana kubadaas soo korosay yaaya Faras Sergio ayaa kubadaas ka soo saaray degmadiisa dharkin leey gadaal ayaa kubadaas la soo dhigay dharkin leey ayaa kubada la wareegan markan si qurux badan ayaa loogu tuuray waa kan ciyaaryahanka lambarka 17aad si kastaba ugu dambeyn abwaanka ayaa kubadaas dhacda ka jiray abwaanka ayaa interception sameeyay abwaanka ayaa kubadaas burburiyay si sameeyeen in kasta ugu dambeyn kubadaas ay soo burburiyeen markale xidigaha degmada dharkin leey عبد القادر ما ياله باستعنا ياله باسي قطر دافيسا كرسون عادي بتاع سيرجا يمكن واجي زكريا جاي ما كان كادك بدا سعيريان كلو مغاب زكريا جاي دلكن لا يا برارك حرنسا وحنا كميدا ما ياله لا فناكا من السيارة برتماها جروكا مسافة دير وجر الشبق ويلان ليا بوانكا على سكر سكو بداسيو سيكستمو قدام بير وبتباشي قولا يالو مقابو أبوانكا قاركود قدها جروكا يو كسوغيين halka qaar kale banaanka ay ka daawanayaan darkin lee qatar salah banaanka Allah macayad fursad ajiiba Allah macayad fursad qariya Allah macay fursad qurux badan soo martay salah inkastoo ugu dambeyn kubadaasi banaanka ay kaaday haddana xidiga degmada darkin lee wali waa duulaan Faras Sergio bas fiican uu soo dhigay salah mar kale ma yaalay banaanka سيكستو وحا laga dhigay garab dhaaf xidiga degmada darkin leey سيكستو وحا laga dhigay garab dhaaf عبد القادر ما yaale سيكستو وحا garab dhaaf loo dhigay barbaarta waa bari bala inuu daawano mar kale bala inuu sheeda sare ka qiimeeyo mar kale xaaladii halisteeda ka dhacday diilinta lahaad ee wiilaanayo golayaha degmada waa bari abwaanka iyo kubadii tigsiga lahayd oo taabta laacibka lagu magacaabo Salah tanka degmooyin gobolka Banaadir iyada ayaa ku guuleysanaysay waxaana ay ka kala qaadeen shibis iyo sidoo kale odan kubada atara ya salaam ya asaate waa laga rabay ciyaaryahanka lagu magacaabo maayaale ugu dambeyn garsoor aadibita Saciid Mire seeriga ayuu ka dhawaajiyay waxaana qaybta koobaad ee ciyaarta lagu kala marayaa daawadayaal barbara gool allaana barbaarta darkin leeyaa kubada soo ciyaar gelinaysa markan oo ka soo aragtid dhanka Facebook bartaan ku leenahay Astaan Sports adigu soo waad ka qayb qaadan kartaa si kastaba waa isku dhacdo kubada markan ciyaaryahanka lagu magacaabo baanaya ayaa diilinta laxaad kubada ka helay saddex labadina way ka sameeyeen weerarkooduna waxaad ka garan kartaa in ciyaartu ay tahay wili barbara gool allaana Maxamuud ayaa kubadaasta markan Maxamuud si kastaba ugu dambeeyana kubadaasi burburin cajiib ayuu sameeyay golaya abwaanka ayaan ka dhowr sugayna kubada inuu soo ciyaar galiyay markan maadaama laba daqiiqo ciyaarta lagu daray soo ilaatay garsoor cadibita Saciid Mire seeriga ayuu ka dhawaajiyay waxaana gabi ahaanba ciyaarta ku soo ilaatay daawadayaal 80 daqiiqo ugu talagalay barbara gool allaana waa bari sibir darkin lee sibir si kastaba lambarka 19 ee degmada waa bari waa uu taagsaday waa uu talaabsaday gollatso ayaa kubada u taagan lambarka 7 ee degmada darkin leey Pedro waxa uu wajahayaa golayaha Pedro ya salaam gool Pedro ayaa si qurux badan kubadaasi u dhaliyay miyuu ibra shabaqa dul ligi doonaa waan eegi doonaa waa tii labaad ee waa bari banaanka وجايا golayaha lagu magacaabo Cabdirasaaq waa uu talabsaday banaanka markii labaad banaanka waa bari way qasaariyaan waa bari way lumiya ciyaaryahanka lambarka 17aad ayaa la soo tiray Mustaqbal gollatso oo ay dhaliyaan darkin leey wax kasta way dhamaan doonaan si kastaba si qurux badan ay u dhaliyaan ciyaartooyda degmada waa bari goolkulaadkii afraad ayaa la tuuranayaan markan ciyaartooyda degmada darkin leey waa bari goor hore 4 gool kulaad ay u turteen laba way dhaliyaan labana way qasaariyeen darkin leeyna 3 ay turteen laba way dhaliyeen halna way qasaariyeen
مركز سوا صلاح جول سيكستا هو جول كولاتكي ugu dambeysay waa birayaan u taagan عثمان ولا يغطي جوكا بالو جوكا فينيتو ciyaartu way dhamaatay mudane Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya xildhibaan Khadiija Maxamed Diiri